ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay qorshaha uu damacsan yahay inuu ku maamulo xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo haddii baarlamaanku ansixiyo. mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga ee Universal kadib markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayo soo celinta amniga iyo abuuridda hanaan dowladnimo oo wada shaqayn ku dhisan. waxqabadka ka mid noqon doona waxa ugu horeeya security maxaan ku raahdaa dhanka ammaanka waa muhiim maxaa yeelay haddii aysan jirin wax ammaan ah dowladda ma jirto. dowladdu waxay dowlad ku tahay in ay adkayso ammaanka oo ay siiso shacabkeeda nabadgelyo buuxda taasna waxa weeye muhiimadeedu ugu horeysa. ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay in uu soo dhisayo xukuumad kooban oo tayo leh taasoo ku shaqayn doonta aqoon iyo xirfad sare si dalka dhibaatada looga saaro. hanaan socodka dowladda waxaa looga baahan yahay khaasatan aniga dhankayga ah inay timaado gole wasiiro oo tayo leh maxaa yeelay hadday yimaadaan dad aqoontii maamulka iyo aqoontii kalaba leh waxaa imaan kartaa wasaarad walba inay hawsheeda ka soo baxdo taasi waa lama huraan. ra'iisul wasaare farmaajo ayaa sheegay inuu abuuri doono qaab sahlan oo ay ku wada shaqayn karaan madaxtooyada baarlamaanka iyo xukuumadda si waxqabad dhab ah loo helo. lixda qodob waxa weeye wada shaqaynta golaha wasiirada baarlamaanka iyo madaxweynaha. tan labaad waxa weeye waxqabadka waa in wax la qabto oo ay ka mid tahay ammaanka hanaan socodka dowladda. ra'iisul wasaaraha cusub mudane maxamed cabdullaahi maxamed ayaa sidoo kale sheegay inuu xoogga saari doono dib u heshiisiinta isla markaana uu ku dadaali doono siduu wadahadal ula furi lahaa mucaaradka si nabad loogu soo dabaalo dalka. siyaasadda dib u heshiisiinta waa muhiim maxaa yeelay waxaa muhiim ah in dib u heshiisiin la galo oo dowladdu ay xoogga saarto sidii mucaaradka ay ula hadli lahayd ama ula furi lahayd wadahadal. dagaal waxa ma taro sidii loo joojin lahaa dhiigga ummadda Soomaaliyeedna in laga taliyo maxaa yeelay cid ay dan ugu jirto waxaan qabaa inaysan jirin ama qolooyinka mucaaradka ha ahaadaan. dowladdu boolisigeedu waa qeexan yahay. dowladdu waxay ka hormarinaysaa. ra'iisul wasaaraha cusub ayaa dhanka kala sheegay in uu mas'uuliyad gaar ah iska saari doono sidii wax looga qaban lahaa dadka barakacayaasha ah uuna kala kaashan doono wadamada deeqaha bixiya iyo cid kasta oo wax ka qaban karta wuxuuna kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka dalbaday in ay kala saaraan siyaasadda iyo samafalka loo sameynayo dadka dhibaataysan bini aadanimada ah. waxaan mas'uuliyad gaar ah iska saari doonaa dadka ku tabaalaysan magaalada dhexdeeda oo dagaalada korkooda lagu dagaalayo. waxaa xaqiiqo ah in ay u cararaan magaalada banaankeeda iyagoo tabaalaysan. waa muhiim dadkaasi in maxaan ku raahdaa macaawino lala gaaro. waxaan la kaashanaynaa adduun weynaha. waxaan weydiisanaynaa qolooyinka mucaaradka ah inaysan dhex gelin siyaasadda dadkan. mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay inuu wada shaqayn wanaagsan la yeelanayo baarlamaanka si loogu guuleysto howlaha adag ee dowladda hor yaalla. taasna waxaan rabnaa in aan kala shaqayno golaha baarlamaanka oo xubin muhiim ah. waxaa noo taala shaqo aad u adag waddankeena dhibaato ku jira. dhibaatadana waxaa looga bixi karaa wada shaqayn iyo dulqaad iyo in la istixgeliyo. laakiin haddii aan ku wareegano waxyaabo yar yar oo aan macno lahayn oo aan dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan oo dhibaatada haysato oo muddada 20 sano ah dhibka ku jiray hadee taasi ma aha tala mas'uul ma aha. ra'iisul wasaaraha cusub mudane maxamed cabdullaahi maxamed ayaa ugu baaqay dhammaan Soomaalida in aqoon-yahanada fursad loo siiyo ka qayb qaadashada siyaasadda dalka isagoo aqoon-yahanada ku booriyay in ay ku dhiiradaan in ay dalka ka shaqeeyaan sida uu isaguba sameeyay. aanan ku encourage garayno dadka aqoon-yahanada naftigooda inay qaataan sacrifice sida aniga aan qaatay dad badan si ay u qaateen si ay wadankooda dib ugu soo celiyaan sidoo ahaan jiray. waa ognahay Soomaaliya waxay aan jirtay wadanka khaasatan Muqdisho
magaalada ugu security fiican ugu safe macnaheedu the most safest city haddana hadee waxa weeye waa magaalada ugu khatarsan ugu khatarta badan marka muhiimku waxa weeye in la wada shaqeeyo in danaha dadka iyo dalka la fiiriyo qof walbana waxa ka saaran mas'uuliyad iyo waajib sidii dalka iyo dadka loo badbaadin lahaa 20 sano wax ka badan oo loo dul qaadan karo ma jiraan ummadda Soomaaliyeed oo tabaalaysan waxaan u sheegayaa dibkii waa dhamaaday waa inay iyaga naftooda ka soo qayb galaan dhismaha dalka inay dawladda taageeraan inay ka shaqeeyaan maslaxadda tooda iyo maslaxadda guud ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ugu dambeyn si kooban uga hadlay taariikhdiisa wuxuuna sheegay in uu kala bardaadiisa ku jiray arrimo maamul uuna rajeynayo inuu dalka dhibaatada ka saari doono taariikhdayda kooban markaan aan ka warramo anigu waxaan ku jiray siyaasad iyo howlo dawladeed in ka badan da'daan jiro adigu aan iraahdo 25 sano oo u dhaxaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda New York gobolka intaasna waxaan ku dhex jiray arrimo maamul aqoontaydu waxay gaarsan tahay ilaa master's degree waxaan macallin ka ahay jaamacad ku taala New York State Erie County halkaas oo aan ka dhigo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ee uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayay dadka siyaasadda Soomaaliya indha ku tilmaameen in uu yahay shakhsi ka dhisan dhammaan dhinacyadii ay ku fashilmeen kuwii ka horeeyay maadaama uu leeyahay aqoonteeda Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho.